waxaa jira in dadka habeenkii maadaama badankeed ay mugdi tahay meelaha qaarna dhoobo ay ku jiraan inay yani ay ku dhacaan marka aad weli ma ku dhacdo dhoobo weli kuma dhicin laakiin walaal in badan oo ku dhacday oo bulshada ka mid ah baan arkay sida carruurta yaryarka iyo dadka waaweyn oo waayeelka marka waxaan leeyahay qoladan mas'uuliyiinta oo mar labaad la doortay odayaashu waxay isxilqaameen oo waajibkooda ha guteen mar labaad dawladda canshuur bay qaadataa magaaladana lacag baa laga aruuriyaa oo guri kasta $2 baa laga qaadaa $1 korontada lagu kordhiyey iyo $1 biyaha lagu kordhiyey way fududahay simple way biyo mareenno in la sameeyo dhaqaalaha si wanaagsan loo manage gareeyo loo maamulo magaaladu waa dhex mari la'yahay magaaladu marka waxaan leenahay maamulka iyo dawladda dadka si fiican oo sharciga waafaqsan loogu adeego habeenna ka hor waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka da'ay roobab xooggan kuwaasoo biyo dhiga qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada iyadoo magaalada qaarkood ay biyo fadhiyaan waxa ay caqabad ku noqotay isu socodka gaadiidka iyo qaar ka mid ah dadka waayeelada sida carruurta iyo dadka da'da haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay maanta aragtidooda ka dhiibteen kana codsadeen dawladda in ay wax ka qabtaan biyaha fadhiya magaalada waxaan warbixintan idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Ali Fari waxa ka imaan kara caafimaad darro waxba ka daran waxaynu magacawnaa hadda maayar cusub aqoonyahana xasan maxamed shaac jidka la yiraahdo fadan hayo goynina xasan jidxun wuxuu hayaa wax yar marka waxaan rajaynayaa balaynka hadda uu wato oo sidaan wada hadalay balaymada uu wato inuu ku guuleysan doono inuu biyaha ka nadiifiyo inuu qorshayaal badan qabto marka maayarka waxaan leeyahay maayar deewaana cusub tahay kartidaadana waa aqaanaa odayaashii radio Gaalkacyo dhisana waad ahayd Gaalkacyo dhisbay ka sugaysaa magaaladu waa dhex mari la'yahay magaaladu waxay u baahan tahay dawladda hoose iyo macnaha maamulku inay ka shaqeeyaan biyaha meelaha fadhiya iyo nadaafad darrada waxaa jira laamiyada qaar oo ay biyaha roobka ay qodeen oo ay biyuhu ay xireen marka ma la isdhihi karaa biyahaasi ama dhoobadaasi bulshada caafimaad darrana u sababi karaan gaadiidkana dhibaato way ku keeni karaan ma waxyaalaha labadaba way keeni karaan waxyaalo ka si badan bay keeni karaan waxa kale la yiraahdo islaamaha hooyooyinka iyo maatada iyo dadka habeenkii inta qof biyo ku dhaxdhacaysa madow oo quruna waxa kale la yiraahdo baabada marka waxaan leenahay maamulka iyo dawladda dadka si fiican oo sharciga waafaqsan loogu adeego canshuurtoodana dadka cidna bari maayaan waxooda waxa loogu qabtaan u leen walaalo waa ka xumahay waana la soconnaa magaalada nadaafad darrada ka jira gaar ahaan xagga marka roobku da'aan magaalada iska biyo fariisad waaye dhiiqo marka waxaa la yiri nadaafaddu waa iimaanka barkiisa waaye biyaha meelaha fadhiya xanuunaha ka dhasha cudurro faafaya ka dhasha bahalaha ku dhasha kaneecooyin baa ka faafa markii hadhow qalalaan boor bay isbedelaan iyo waxay noqdaan nadaafad darro oo dadkii bay dib haddana ma garanaysaa xanuuno contagious oo faafa ayaa ku dhacaya marka way fududahay dawladda canshuur bay qaadataa magaaladana lacag baa laga aruuriyaa oo guri kasta $2 baa laga qaadaa $1 korontada lagu kordhiyey iyo $1 biyaha lagu kordhiyey way fududahay simple way biyo mareenno in la sameeyo dhaqaalaha si wanaagsan loo manage gareeyo loo maamulo magaalada marka 6 bilood kaliya ayaa biyaha looga saari karaa qarashka la aruuriyo dawladduna inay qaybteeda qaadato canshuurta ay aruuriso dadku soo celiso dadka haddii wax loo qaban waayana waa in cabasho si guud loo gudbiyaa waa in la helaa heykal lala xiriiro degmada duqa lala xiriiro gobolka lala xiriiro kadibna maamulka guud ee Puntland caasimadda Garowe madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo wasiirada lala xiriiro laakiin dadku hadday waxa ku shaqale waxa weeye waxay ka bilaabanaysaa degmada ka bilaabanaysaa degmada gobolka kadibna waxa weeye madaxtooyadii ayay ku soconaysaa shacabku marka hadday seexdaan cid wax u qabanaysa ma laha isla xisaabtan baa loo baahan yahay yaa la xisaabtami karaa marka waa markii qof sax oo ku habboon booskii ummaddu ay ku aamintay qof sax ku habboon marka la geeyo ayaa wax qabad kale iman karaa marka hoos bay wax ka leesan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in dad ummadda matala ummaduna ay dooratay oo wanaagsan inay ummadda u soo baxaan insha Allah roobkaas waxaan oran lahaa dawladdu wax ka qabato si maamulka gobolka inay liqooyinkaas wax ka qabtaan wax ka bedelaan magaalada in xarakaawooyin wax lagu shubo dhiiqada wax looga bedelo si magaalada u noqoto magaalo biliclo qurux badan waa gartay waxaa jira dadka qaar in habeenkii ay maadaama magaalada badankeeda ay mugdi tahay in habeenka dadka dhoobada ay ku dhex dhacaan wali adoo dhoobo ku dhex dhacday may wali kuma dhex dhicin laakiin oo dhadhow hadii macnaha saan wax u socdaan roob badan ay daan baa dhici karta waa gartay marka ugu dambeyn maxaa gudoomiyaha gobolka Mudug iyo madaxweyne Dani iyo dhammaanba dawladda Puntland ka codsanaysa in magaaladan loo qabto gudoomiyaha gobolka Mudug horta mid isagoo wax qabanaya ma ahanba
dani waxaan ka codsan lahaa gudoomiyaha gobolka mudug in sida ugu dhaqsiyaha badan uu xil ka qaado maadaama uu soo nin gobolkan u soo jeedo waxba ka qabanay inta ni wallahi caqabado badan waa iska jiraan laamiga waa iska jajamay xaaladiisana waa iska adag tahay marka meelo kastana biyaha fadhi laamiga ahayn laakiin caqabado badan waa jiraan in wax laga qabtaan oo loo baahan yahay dawladdan waxaan sheegaya iyo gobolka iyo gudoomiyaha gobolka inay wax ka qabtaan hawlahaas saasaan leeyahay insha Allah walaal waa mahadsantahay mar labaad waxaan naga soo gaari kara jeermiska iyo boorka iyo dhibaatadu waa dareemaysaa qoladan dawladda hoose waxaan leeyahay maadaama mar labaad la doortay nimankaasi waxay isxil qaameen shaqadoodana ha qabsadeen intaasaan leeyahay walaal marka dadka waaweyn ee da'da ah sida adoo kale intaad uma weynid waxaa jira in dadka habeenkii maadaama badankeed ay mugdi tahay meelaha qaarna dhoobo ay ku jiraan inay yani ay ku dhacaan marka aad weli ma ku dhacdo dhoobo weli kuma dhicin laakiin walaal in badan oo ku dhacday oo bulshada ka mid ah baan arkay sida caruurta yaryarka iyo dadka waaweyn oo waayeelka marka waxaan leeyahay qoladan mas'uuliyiinta oo mar labaad la doortay odayaashu waxay isxil qaameen oo waajibkooda ha guteen mar labaad iyagoo mahadsan ugu dambeyntii maxaa leedahay gudoomiyaha gobolka mudug iyo dawladda Puntland dhammaan madaxweynaha maxaa ugu baaqaysaa in magaalada Gaalkacyo laga qabto biyaha fadhiya madaxweynaha walaal waa nin odaya waana taageersanahay wax badan oo madaxweynayaashii hore oo na soo maray aysan noo qaban buu qabtay sida qoladii balada ahayd oo dadka madaxa jabin jiray uu u soo afjaray intaa kaliya ku taageersanahay wax kale oo uu qabtayna anigu maba garanayo laakiin intaas waxay tahay in kulligayna wada taabanaysa waa tahay daawadayaal ugu dambeyntii waxaa halkan ku soo gabagabaynaynaa ra'yi aruurintii la xiriirtay roobabka magaalada ka da'ay kuwaasoo badankood dhiiqa iyo dhoobo ku reebay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Maxamed Cali Fare idaacadda Gaalkacyo isla magaalada Gaalkacyo